بسم الله الرحمن الرحيم كنا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga HBN barnaamijkan gabi ahaantiisba waxaynu ku soo qaadanaynaa iyadoo la galay toddobaadkii labaad dagaalka bariga dhexe ee gorada iskula jiraan Iiraan oo dhinaca iyo Mareykanka iyo Israa'iil oo isbahaysanaya ayaa waxa qobaradu ay shaki weyn ka muujinaysaa hadallada Trump ka soo yeeraya ee ah Iiraan inay si dhiibto in Iiraan ay u dhaga taagi doonto ama u dhaga raaricin doonto Iiraaniyiintu waxay si cad u sheegeen in dagaalkan inay sii wadaan muddo dheer ay u diyaar garoobeen waxaana qobaradu ay leedahay 20 sano ayay Iiraan dagaalkan isku diyaarinaysay mara muuqato inay isdhiibayaan arrintan waxaa sidoo kale saacadihii ugu dambeeyay ku soo kordhay Iiraan oo bedelaysa qeydada dagaalka lana soo baxday xeelado cusub haddaba arrimahan iyo waxa qobarada ay ka tiri ayaynu barnaamijkan ku faahfaahin doonaa macluumaadkan soo ururiyay qadkan ku jira maxamed bal hadda inoo bilow warbixintan iyo waxa laga leeyahay dagaalkan Mareykanka iyo Israa'iil ee ka dhanka Iiraan ayaa waxaa muuqata in uu siyaasad ahaan iyo military ahaan badal galay kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku dhawaaqay inuuna aqbali doonin in heshiis lala galo wadanka Iiraan wuxuuna ku nuuxnuuxsaday khiyaarka kaliya ee miiska saaran inay tahay in Iiraan si shuruud la'aan ay isu dhiibto xilli howlgallada militariga ay socdaan isla markaana la isku diidan yahay wadanka Mareykanka gudihiisa hadafyada Mareykanku ku leeyahay dagaalkan iyo dagaalka awoodda sida u xadidan tahay sida Trump uu sheegay dowladda Mareykanka ma aqbali doonto heshiis inay la gasho wadanka Iiraan wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in hoggaanka cusub ay Iiraan yeeranayso waxa waajib ah in dowladda Mareykanku ay raali ka tahay isla markaasna uu mowqifkeedu yahay in dagaalka ay dardar gelinayso marka la barbar dhigo bayaanadii hore loo soo saaray madaxweyne Trump mowqifkiisa ayaa imaanaya saacado kadib markii bayaan uu soo saaray madaxweynaha wadanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian oo bartiisa X ku qoray in uu la hadlay qaar ka mid ah dhexdhexaadayaal ku dadaalaya dhowr dal inay dagaalka joojiyaan wuxuuna ku nuuxnuuxsaday in Iiraan ay rabto nabad hase ahaatee ay sii wadayso in nafteeda difaacdo kormeerayaasha dadkan arrimahan la socda ayaa waxay aaminsan yihiin jawaabta Trump ayaa waxa ay muujinaysaa in uu diidan yahay diblomaasiyadda ay wadamada qaar wadaan isku day uu rabo in uu dalabaadkiisa kor u sii qaado marka ay timaado wada xaajoodyada oo uu cadaadis dheeraada ka dhigo waa gartay maxay qobarada ka leedahay hadallada ka soo yeeraya Trump ee ah inuu doonayo inuu ku lug yeesho magacaabista iyo doorashada hoggaanka cusub iyo inuu ka fakarayo in wixii ka dhacay Venezuela kale uu ka sameeyo Iiraan maxaa laga leeyahay arrinkaasi Trump ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay inuu awood u leeyahay inuu hogaamiyaha xiga ee wadanka Iiraan uu si sahlan u xulo si la mid ah wixii ka dhacay wadanka Venezuela arrintan waxay muujinaysaa maamulka Mareykanka inuu u jihaysan yahay inuu dagaalka hadafyadiisa sii ballaariyo isagoo duqeynaya barnaamijka nuclearka Iiraan iyo agabka militariga Iiraan isla markaana ka hadlaya xukuumadda Iiraan in la bedelo Douglas Silliman oo hore u ahaan jiray safiirkii Ciraaq u fadhiyi jiray safiirkii Mareykanka u fadhiyi jiray Ciraaq iyo Kuwait isla markaana hadda madaxweyne u ah maxadka wadamada gacanka ayaa sheegaya in hadallada ka soo baxaya madaxweyne Trump ay muujinayaan inuu ku kalsoon yahay inuu kalsooni weyn ku muujinayo kadib markii uu helay warbixino xagga militariga oo talo siinaya waxaana muuqata in madaxweynaha Mareykanka sida khabiirkan hadal ku dhigayo uu macluumaad ka helay taliska Florida ee ciidamada Mareykanka oo tilmaamaya in awoodda militariga ee Mareykanka ay aad u sarreyso marka la fiiriyo ciidamada qalabka sida ee wadanka Iiraan isla markaana waxa uu sheegayaa in maamulka ay dhiiro gelinayaan kurdiyiinta Iiraan inay ayaguna qaadayaan tillaabooyin ka dhinaca xukuumadda Iiraan Silliman ayaa waxa uu ka digayaa Mareykanka xaggiisa waxa ka muuqata buu leeyahay kalsooni dheeraad ah
wuxuuna sheegay dalabaadka uu Maraykanku ka rabo Iiraan oo ah inay si buuxda isu dhiibtaa waa ka badbadin weeye ayuu leeyahay khabiirkaasi, gaar ahaan marka la fiiriyo dabeecadda xukuumadda waddanka Iiraan, isla markaana lagama fili karo inay caqbasho qodobadan uu madaxweynaha Maraykanka u wato. waa gartay waayahay Trump waxaa leeyahay lama yaqaana waxa uu doonayo mowqifkiisana waa lagu jaha wareersan yahay sida khibrada ay sheegayso. maxaa loola jeedaa arrimahaas? Alex Fatanka oo agaasimo ka ah barnaamijka Iiraan ee gobolka bariga dhexe maxad arrimihiisa wax ka qora ayaa sheegaya in mowqifka Trump uu isbedel weyn ku yimid toddobaadkan. Istiraatiijiyadda hadafkii uu ka lahaa ee ahayd ololaha militariga in aynan weli u caddayn muraadkii uu ku leeyahay dagaalka. waxaa kale uu sheegay in madaxweynaha Maraykanka u muuqdo inuu ku kalsoon yahay inuu guul military waddanka Iiraan ka gaari karo. mar su'aal laga weydiiyeyna waxa uu yiri qiimaha dagaalka ugu fariisan doono waddanka Maraykanka iyo dhaqaalaha caalamka iyo sidoo kale wadamada gacanka haddii colaadani ay jiidanto ay noqoto mid toddobaadyo socota inay saameyn weyn yeelan karto. Fatanka ayaa tilmaamaya in bulshada Iiraan ay aad iyo aad u careysan yihiin sababtoo ah waxa ay u tirinayaan in dagaalkan laga baaqsan karay. hase ahaatee wuxuu ku nuuxnuuxsaday in xaaladda hadda jirta aynan u ogolaanaynin in ay mas-uuliyiin cusub oo waddanka Iiraan ay ka soo baxaan oo Maraykanka la shaqeeya, sababtoo ah siyaasad ahaan hoggaan cusub ma soo bixi karo. maxaa yeelay dagaalka ayaa waxa ay keenaysaa qofkii Maraykanka la shaqeynayo la arka naftiisa ayaa khatar gelaysa. waa gartay waxaa jira wadahadallo iyo shirar Trump uu la yeelanayo shirkadaha Maraykanka, kuwa hubka iyo kuwa shidaalka. maxay ku wajahan yihiin shirarkaasi? aqalka cad ee Maraykanka ayaa gaar ahaan madaxweynaha Maraykanka ayaa shir la yeelanaya mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee 6 shirkadooda ugu waaweyn ee waddanka Maraykanka xagga difaaca. waxaa ka mid ah Lockheed Martin oo diyaaradaha samaysa iyo Boeing iyo agab kale sameeyaan. aqalka cad ee Maraykanka afhayeen u hadashay oo haweeney ayaa waxay sheegaysaa in kulankaasi uu qorsheysan yahay, in la qorsheeyey toddobaadii ka hor, qaybna ka yahay maamulka Maraykanka qorshihiisa uu ku dardargelinayo wax soo saarka xagga hubka ee Maraykanka. waxaana lagu nuuxnuuxsanayaa in dowladda Maraykanka ay hub ku filan haysato ay ku gaari karto hadafyada military ay ka leedahay waddanka Iiraan. hase ahaatee ilo Maraykanka ayaa militariga Maraykanka ayaa sheegaya in howlgallada militariga ay horseed ka yihiin Iiraan ka dhanka ah in loo baahan yahay diyaarado fara badan oo nooca droniska oo Iiraan ay leedahay, gantaalada looga hortago iyo walwal weyn oo laga qabo in dagaalka haddii uu sii dheeraado gantaalada looga hortagaya diyaaradaha droniska iyo gantaalada Iiraan soo ridayso ay haystaan Maraykanka iyo xulafadooda inuu gabaabsi ku sii dhacayo. waxaana muuqata maaha markii ugu horeyso arrintan la sheegayo, dhowr goor hore ayaa warbixin lagu sheegay. waa gartay dhinaca kale haddaynu ka eegno saraakiisha Maraykanka ayaa iyaguna ka hadlaya dagaalkan iyo weerarada socda xagga cirka. hadallada qaarkoodna faan baa lagu fasirayaa. maxay sheegeen? taliye ka tirsan taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka Admiral Brian Cooper ayaa waxa uu sheegay dowladda Maraykanka iyo Israa'iil inay awood u yeesheen inay burburiyeen dhammaan nidaamkii difaaca iyo kaabayaashii difaaca cirka Iiraan. natiijadana ay tahay in hawada in ay la wareegaan Maraykanka iyo Israa'iil inay hadda qarka u saaran tahay, taasoo u ogolaanaysa bartilmaameedka ay rabaan in ay duqeeyaan hub noocyo kala duwana ku duqeeyaan. taa waxaa barbar socota in howlgallada military uu dardargelayo. Suleiman ayaa waxa uu tilmaamaya oo ah khabiir kale in wadamada gacanka ay horseed ku yihiin Cumaan iyo Qatar ay wadaan hindise isku dayayaan inay dhexdhexaadin ku sameeyaan dagaalka lagu joojinayo. wuxuuna khabiirkaasi sharaxayaa in wadamo badan oo Carabeed ay rabaan
in dagaalka si dhaqsaa lagu soo afjaro sababtoo ah dhaqaalahooda ayaa saameyn gurracan ku timid gaar ahaan saliidda iyo gaaska ay dhoofinayeen isla mar ahaantaasna waxay diidan yihiin inuu dagaalkan iiraan ka socda inuu gobol kasii socdo khilaaf xagga siyaasadda ah oo dagaalka la xiriirta ayaa dardar gelaya iyadoo maraykanka gudihiisa aqalka wakiilada ay diidayaan qaraar looga gol lahaa in lagu xanibo madaxweynaha maraykanka awooddiisa lagana hor istaago inuu dagaalkan iyo howlgalkan military iiraan ka dhanka ah uu sii wado iyadoo aanan ansixid laga helin koongareeska maraykanka waa gartay marka fadhigii koongareeska wuu dhacay maxamed maxaa ilaa hadda natiijo ah oo la oran karaa waa laga gaaray fadhiyadaasi ay yeesheen xildhibaanada koongareeska 219 ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo caqlabiyad ah ayaa diiday qaraarka waxaana taageeray 212 oo xisbiga dimuqraadiga ah qaraarkaas ayaa dowladda maraykanka ciidamadeeda loo baahnaa inay si dhaqsaa dagaalka ku joojiyaan iyadoo aan koongareeska laga helin ogolaasho rasmi ah oo dagaal senator ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo Chris Murphy la yiraahdo ayaa digniin ka bixiyay in cawaaqib ka imaan kara dagaalkaas uu saameyn weyn yeelan doono doorashada soo socotay November la gelayo wuxuuna sheegay maraykanka ma rabaan inay dagaalo cusub galaan oo bariga dhexe gaar ahaan mana la rabo in qiimo badan oo dhaqaale inay maraykanka ugu fariisato iyo dad inay ka dhintaan nin ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo senator ah oo Kevin Cramer la yiraahdo ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha maraykanka wuxuuna sheegay madaxweynaha maraykanka asaga go'aamadiisa qaadanaya kuna saleynaya macluumaadka lagu difaacayo amniga qaranka ee waddanka maraykanka waaya aan ku soo gabagabayno marka madaxweynaha maraykanka hadaladiisa waxaa ka mid ah in qorshaha maraykanka ugu dambeyn ay tahay in xukunka laga tuuro nidaamka iiraan arrintaas waxaa ka hadlaya xogayaha muraha dibadda ee maraykanka inoo faahfaahay asagana hadalkiisa maxmed sida laga soo xiganayo bar internetka oo laga leeyahay maraykanka Axios la yiraahdo xogayaha arrimaha dibadda waddanka maraykanka Marco Rubio ayaa u sheegay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carbeed in hadafka maraykanka uunan ahayn in xukuumadda iiraan xukunka laga tuuro hase ahaatee waxa uu tilmaamay in dowladda maraykanka ay doonayso in dad cusub in ay waddanka iiraan maamulaan ilahaas ayaa waxay tilmaamayaan Rubio inuu xaqiijiyey in hadda wax wada hadal aan lala gelaynin in jirin ama u dhaxeeya dowladda maraykanka iyo iiraan wuxuuna hoosta ka xariiqay in wada xaajoodyada marxaladan hadda lagu jiro ay yaraysanayaan hadafyada howlgalka military looga dan leeyahay Alam Saleh oo professor ka ah jaamacad ku taala Australia isla markaana mutakhassis ku ah daraasaadka iiraan ayaa sheegaya in siyaasadda maraykanka ee ku wajahan iiraan ay dib u dhac weyn uu ku yimid marka la fiiriyo maadaama istiraatiijiyad cad uu maraykanka haysan wuxuuna ku eedeynayaa maraykanka in uu aad isugu hadlaynayo awood military aragtidiisana professorkan waxa uu qabaa dagaalka hadda socda waxa uu muujinayaa in maraykanka uunan si fiican u fahamsanayn dabeecadda xukuumadda waddanka iiraan iyo shacabka iiraan iyo siyaasadda waddanka iiraan iyo awoodda waddanka iiraan iyo bulshada waddanka iiraan sida ay u mirqsan tahay maraykankana aad moodo inuu ku dhex dhunsan yahay waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna mahadsanyiinta ayaan kusoo gabagabinaynaa barnaamijkan daawada si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan nagu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgeli